Soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa faraska loogu dhuftaa shaabuuga waa orodka habad iyo hasii dheereeyo. qofkii muuminka ah ee miyirka qabay ee qumanaa ee isagu dadaalayay intii itaalkiisa ah ilaahay jannadiisa siduu ku heli lahaa dadaalayay marka looga sii sheekeeyo looga warramo jannada iyo waxa dhex yaala iimaankiisii iimaan baa ugu kordhaya dadaalkii dadaal buu ku kordhinayaa cibaadadii waa u sii macaanaanaysaa ducadiina wuu laban laabayaa sidaa awgeed haddii la yidhaahdo jannadaa 8 albaaba ha laga sheekeeyo dee idinkoo dhan waa garanaysaan inaanay ku filnayn wakhtigan kooban ee bayna cishaa'inka ah laakiin wuxuun baynu ka sheegaynaa aayadaha qur-aanka iyo xadiidka nebiga ka mid ah sala allahu calayhi wasalam ujeeddaduna waxa weeye wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin naftayda inaan xusuusiyo waa qodobka ugu muhiimsan en kelmadda inaynu jeedinnaba sababay anigaa cid walba uga baahi badan naftayda inaan xusuusiyo u sheego kadibna idinka idinla wadaago ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmaddatan hayna waafajiya sida xaqa ahe ilaa 20 qodob baynu taaban doonnaa oo qur-aan iyo xadiid isugu jira kanu jannada tilmaamayno taqriiban alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u diyaariyey dadka ahlu taacadiisa ah iyo isaga adeeca mu'miniinta isaga rumaysan ee raacsan ee ka dambaysa jannaad buu alle u diyaariyey jannooyinkaasoo waa weyn cadiimatu litisaac aad u balballaadhan aad u waaweyn ayaa ilaahay u diyaariyey subxaanahu wa tacaala kaiiratu lkhayraat khayrkeeduna aad u badan yahay baa ilaahay u diyaariyey markuu sidaa jannadii u goglo u diyaariyey buu innagana wuxuu ilaahay ina farayaa inaynu fadhiga ka kacno u beratanno oo loo kala dheereeyo acmaasha saalixaadka ah sida qofku uu hoy uga dhigan lahaa aliimaanu waalcamalu asaalix fii suurati aali cimraan iyo fii suurati alxadiid alle wuxuu leeyahay subxaanah wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin waxaad u beratantaanoo u kala dheeraysaan ilaa makfiratin dembi dhaaf rabbi xaggii u dheereeya ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray makfiradaas iyo dembi dhaafkaas ila alislaam islaamka iyo qaybihiisa kala duwan ku dhaqanka lagu dhaqmayo u kala dheereeya cikrima iyo cali bni abi aalib waxay ku fasireen ilaa adaa'i alfaraa'id waajibaadka iyo xilka idin saaran gudashadooda u kala dheereeyo u baratama oo yaan laydinku yeelan farad iyo waajib ilaahay idin saaray daxaak wuxuu ku fasiray jihaadka u dheereeya abulcaaliyat alriyaaxi wuxuu ku fasiray hijrada u dheereeya ikhtilaafu tanawuc waa la yidhaahdaa fii cilmi tafsiir tafaasiirta caynkaas oo kale ah muhimadda waxaa looga jeedaa uun islaamka iyo sharaa'icda uu la yimid u dheereeya dembi dhaaf baad ku helaysaan dembi dhaafkaas rabbi xaggii buu ka imanayaa iyo janno ballaceed iyo balladhkeedu samaawaadkan iyo arladanoo la ysku fidiyey bay la egyihiin samaawaadka iyo arlada 7 dhul iyo 7 cir oo sidaa la isugu fidiyey ayaa jannadaasu ballaceeda iyo dhirirkeeduba meelahaasu ku fadhiyaa fii suurati alxadiid saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi aلsamaa waalard uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih suuraddaasi waxay qeexaysaa jannada intaa ballaceedu la egyahay ee sidaa u cajaa'ibka leh cidda loo diyaariyey ee alla ugu talagalay inay ku raaxaysato uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih waxaa loo diyaariyey kuwa ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala rusushiisana rumeeyey markaasaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa deeqdaa weyne uu bixiyey inay deeq sahlan aanay ahayn
dalika fadlu اllah yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim waa deeq aad u weyn cid ilaahay aan ahayn oo bixin kartaana ma jirto as'al allah an yajcalana min ahliha nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiida saxiixada saxaabada waxay weydiiyeen akhbirnaa can iljanna jannada nooga waran rasuulka ilaahayo rasuulku wuxuu ku jawaabay sal allahu alayh wasalam labinatu min dahabin wa labinatun min fida waxay ka samaysan tahay labinatu min dahabin labino iyo dhagax iyo jaajuur dahaba iyo mid fida ah macdanta qaaligay cad ayay ka samaysan tahay dhulkeeda waxa ku goglanaya yaalla waa miskul adfar waa miskiga nooca ugu udgoon ayaa ku goglanoo yaalla ilaahay ku udgiyey subxaanahu wa tacaala xasbaa'uhaa yaaquutun wa lu'lu quruuruxeed iyo ciiddeedu waa jawharta ta ugu qaalisan iyo luulka buu rasuulku leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh man dakhalahaa laa yamuut qofkii hoy alla uga dhigoo gala dib u dhiman maayo geeridii uu dunida ka soo geeriyooday geeri dambe ma jirto hadduu galo laa yamuutu wayancam wuu nicmaysanayaaye ma geeriyoonayo laa yab'as ma dhibaatoonayo laa yablaa shabaabu dhallinyaronimadiisu ma dhammaanayso isbeddeli mayso walaa yablaa hiyaabuh maryihiisu ma idlaanayaan waa nicmo insaanka ilaahay siiyey nicmooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay fii saxiixi albukhaari wa muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra wuxuu nebigu tilmaamay sal allahu alayh wasalam 8 albaabee jannada albaabu waliba intuu isu jiro markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam inamaa bayna almisraacayni min masaariici aljanna jannada albaabadeeda labada fardadood intaa u dhaxaysaa masaafada isu jiraan kamaa bayna makkata wa ximyar maka iyo ximyar intay isu jiraan oo kale wey ximyar waa beled fi lyaman bal yaman iyo maka kam kilomitr kumanaan kilomitr baa u dhaxaysa halkii albaab labadiisa fardadood intaasay isu jiraan waxaa iman doonta maalin dadka gelayaa ay buuxin doonaan oo cidhidhiyoomi doonto asalu allah an yajcalana min ahliha taasaa iman doonta nebigu leh salawaatu ullahi wasalaamu calayh fii saxiixi muslim xadiidka cuqbata ibnu ghazawaan ayaa wuxuu leeyahay rasuulka sal alla alay slam oo jannada ka warramay anna maa bayna misraacayni min masaariici اljannati masiiratu 40 sanatan labada fardadood ee jannada albaab waliba albaabadooda ka miday inta u dhaxaysa ee loo soconayo 40 sannadood way buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam 40 sannadood baa fardadan intaad ka dhaqaaqdo fardada kale 40 sannadood baa u kala soconaysa baaxadda inta ay la eg tahay ayaa uu rasuulku sheegayaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh jannada yaa gelaya laa yadkhulu ljannata ilaa muslim ilaahay jannadiisa nasiib uma leh oo ma gelayo qof aan muslim ahayn alxamdu lilaahi calaa nicmati alislaam ilaahay sida uu muslimiin nooga dhigay ilaa intaynu ka dhimanayna kala kulmayno islaamnimada ilaahay ha nagu sugo allah fii suurati almaa'ida wuxuu yidhi inahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi اljannata wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar cidda ilaahay shirki u samaysa wuxuu isagu gaar u lahaayoo cibaado ah cidda cid kale ku lamaanaysa ilaahay iyo owliyoy ilaahay iyo nebi maxamedow ilaahay iyo sheekh fulaanow ilaahay iyo waxanow cid kale ilaahay cidda ku lamaanaysa cibaadadu isaga keligii xaq iyo gar u leeyahay sidaana ku dhimata iyadoo waddada haysa faqad xarama allaahu calayhi aljanna ilaahay qofkaa janno waa ka qadiyey xaraam bay ka tahay inuu janno galo wa ma'waahu nnaar hoygiisuna waa naar wamaa lilظaalimiina min ansaar daalimiinta dadka gardarsaree gaalada ah ee ilaahay ku gefay naar waxaan ahayn abaalkoodu ma ah fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra xadiis aayadda micnaynaya nebigu wuxu uhi sal allahu alayh wasalam innahu laa yadkhulu اljannata ilaa nafsun muslima arrinku waxa weeyaan jannada ma gelayo
نفعا مسلمات أهين نفعا مسلمات أهين ودنيا إلهي سدي بن جنة إني قشوا كنت تحت حاشيسو حرام بيكته قلب كصدحات وحا ورسولك إنه قوّر رمي صلوات الله والسلام عليه قاب دسميت كتشنادو أيو دسانتهي حديث بخاري مسلم من حديث عبد الله ابن قيس رسولك صلى الله عليه وسلم شنوين كسقو تلمامية جنتان من فضة آنيتهما وما فيها سجادة شن الله بكمده ولا شيء يضبا معدن تقالي عدد فضة اللي يراهضو أي كسم يسنته وجنتان من ذهب لبا جنة سجادة كمده هنا ذهب بي كسم يسنته آنيتهما وما فيهما ويلك يا واحد حيا لأردن ذهب بي كسم يسنته بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب كمان تدي إذن شاب كيسو وحو عنكو تشيران مو أن لقوين كرين أدركت هالكي جرام مرنا كونتنك أو كبطو مرنا كونتنك كودو دويها دولار ويان قضب كأفراد ورسولك إنه قور رمي عليه الصلاة والسلام الباب هذا تشنادو إني سديدهين ورسولك وحوري صلوات الله والسلام عليه من شهد أن لا إله إلا الله قفك قرة عربك يا قلبي كقرة أحد عبادة متيسة أو الله آنهين إنانو تشرين وحده لا شريك له حالذو كلغي يعد لو ذاك تآني تشرين إسلام مركا قرة وأن محمدا عبده ورسوله نبي محمدنا الله أدون كيسي رسول كيسي إنو يهي إسلام مركا هدنا قرة وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى إنو يهي الله أدون كيسي رسول كيسي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق جنة وحق والنار حق نارتنا وحق عد متيستا جليسة أدخله الله الجنة قفك تاقرة إلى هاي جنة جلينيا من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء سديد الباب جنة كأوضونو أي إلى هاي دخولنا حديث كلا في صحيح البخاري كسوغا من حديث سهل بن سعد الساعدي أي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب جنة سديد الباب كيال سديد الباب بيلاذهي فيها باب يسمى الريان الباب كتير الله يراهضه الباب كي درجة يعكنانشها لا يدخله إلا الصائمون dadkii dunida soo mijiray cid aan ahayn gali maysa rasuulku alayhi salatu wasalaam xadiidka fi sahih muslim min uqba an uqba ibn amir ayaa wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yiri ma minkum min ahadin majru qof idin kamid ah yatawaddau dabeetana weesaysanaya fayusbighu alwudu'a weysada dhamaystiraya si wacan weesaysanaya thumma yaqulu dabeeta oranaya أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا هدعين كايرا هذا فتحت له أبواب الجنة 8 سديد الباب شندا الله بلقيا يدخل من أيها الشاء مدي أدونك قال يا النبي صلى الله عليه وسلم وقفك ويسيسني ويسقبك بطنا يهدي صلاتك يهدان تكنين با ويسدا إلاشا ونسأل دون يده رسولنا وحي صلى الله عليه وسلم ويسد قفا مؤمن هين ما إلاليو ويسد إناد إلاشته ويسقب آدم صعون ومهم وايو ميلاد كل ما نيسو يساد دي ما نيسو الحلة دي ما نيسو مؤجد هذا ويسقب ودكو هكو يماتو قضب كشناد ددك أهل جنها جنة جيليا ددك فقراء ذا أبدا ددك مع القبينك يمدحذا السرسرة انت بدن حد جدب كي كبر كاكو بدن لكن ددك جنة أبدا ديجان كذا آد كأودجي دونا ددك فقراء مساكين تأه ددك تبالي سنبا أبدا حديث عمران بن حسين في صحيح البخاري ومسلم هي النبي يقول عليه الصلاة والسلام هبين كيلا قوريسيي اطلعت في الجنة جنة داوضي ودالعضو جنة يا الله يتصي فرأيت أكثر أهلها الفقراء وحن أركي
dadka u badan ee deegaanka jannada u ahi waa dadka saboolka ah wa talactu fi nnaari naartan daawado waa lay tusay fara'aytu akthara ahlihaa annisaa waxaan arkay dadka ugu badan ee deegaanka u ah waa dumarka buu nebigu yuri sal alla alay wasalam micnaheedu maaha dumarku inay ahal naar wada yihiin micnuhu waxa weeye horta marka hore dumarka ragga way ka badan yihiin tira ahaan mar walba way ka badan yihiin dumarka raggu waa marka labaade wax badan baa dumarka ku badan cayda afxumada xanta nacdasha habaarka waxaasaa afkooda ku badan abaalka dhaca raggooda maxaan ku idhaahdaa wax badan baa ku badan sababahaasaa marka inta badan tira badnaantooda keenaysa iyo gefka ka dhacaya fii sunani tirmidi waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra nebigu sal alla alay sl inuu yidhi sidaa ay u kala horaynayaan xagga deegaanka ile dad badan oo aqniya ahoo jannada gelayana way jiraan laakiin aqniyada ha galeen jannadae waxa kaga badan fuqarada markaasaa nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wakhtiga ay jannada kaga horaynayaan yadkhulu alfuqaraa'u aljannata fuqarada iyo dadka saboolka ee masaakiinta ahi jannaday gelayaan qabla alaqhniyaa'i dadka qaniga ah ka hor ب500 caamin 500 sannadood bijannada kaga horeynayaan marka maalku laftiisu waxa weeyaan xalaaluha xisaabun wa xaraamuha cadaab maaliyadan arkayso xalaasheedana xisaab baa daba socota xaaraanteedana cadaab baa daba socda oo qofkii waa lagu cadaabayaa maaragtay haddii uu maalkii si wacan u tacaamuli waayo qodobka lixaad cidda ugu horeysa ee jannada gelaysa waa ayo ummadihii ilaahay dunidan uu keenay iyo rusushii hogaaminayay u soo diray cidda ugu horeysa ee jannada gelaysa waa ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim baa caddeeyey min xadiid abi hurayra waxaan maqlay buu rasuulka oo leh naxnu alaakhiruuna annagu waxaanu nahay ummadda u dambaysa ee dunida timaadda assaabiquuna yowma alqiyaama maalinta qiyaamana jannada gelitaankeeda u horaysa ayaanu nahay jannadu darajaad bay leedahay darajaad kala sarsareeyay leedahay bacduhaa fowqa bacdin darajaad kala sarsareeyay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu fii suurati taaha aayadda 75 ilaa 76 mujrimiinta markuu ka soo sheekeeyey dadka dembiyada weyn galay ee ilaahay aakhiro la kulmi doona xisaabta iyo ciqaabkay mutaysan doonaan markuu ka soo sheekeeyey buu alle wuxuu yidhi waman ya'tihi mu'minan qofka alle u yimaada xaaladda uu ilaah u imanayo isagoo mu'min ah qad camila asaalixaat acmaal wan wanaagsanna sameeyey fa ulaa'ika lahum darajaat alculaa waxay leeyihiin darajooyin sarsaray leeyihiin jannada meelo saray degayaan asal allah an yajcalana min ahliha meelo sarsaray degayaan maxaa yeelay dadku jannada waa kala darajo sarsareeyaan waalaakhiratu walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila aayad kale ahayd dadku waa kala satroon yahay aakhiro ilaahay agtii sida dunida loo kala camal iyo cibaado wacan yahay ayaa aakhirana ilaahay agtii loo kala satroonaanaya walikullin darajaatun mima camiluu aayaddaas qeexaysa walikullin darajaatun mima camiluu mid walibo dadka ahlu jannaha ka mid ahaa darajaad buu leeyahay laakiin maxaa lagugu siinayaa wixii aad samaysay baa lagugu siinaya fadhi iyo fud iyo cibaad laysku waabay soomaalidu tidhi marka dee waxaa lagugu siinayaa wixii adigu aad samaysay acmaalaha markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay darajaadkaa sarsare jannaatu cadnin nagaadiga iyo barwaaqada jannadeeday geli doonaan tajrii min taxtiha alanhaar guryaheeda iyo dhirteeda hoostooda webiyaa sidaa u burqanaya khaalidiina fiiha way ku waarayaan jannadaa gudaheeda wadalika jazaau man tazakkaa arrintaa ilaahay uu sameeyey deeqdaa uu bixiyey jannadaa iyo barwaaqada waa abaalgudka qofka adduunyada isdahiray adduunyada qofka isnadiifiyey oo xumaan oo dhan iska nadiifiyey abaalkiisu waa caynkaa ayuu nebigu yidhi rasuulkuna xadiidka wuxuu ku leeyay saxiixa ina ahla alcilliyiin
darajooyinka sarsare dadka degan ee jannada la yataraawna man fawqahum kama tarawna alkawkaba fi lufuq waxay dadku isugu tilmaami doonaan oo isu tusi doonaan cidda ay ka sarreeyaan sida dayaxa ama sida xidiga samada ku yaalo kale dadka dhulka jooga xidiga ee kaasa kayf badan kaasa ka sarreeya ayaa jannada dadka xagga hoose jooga kuwa ka sarreeya ay isugu tilmaami doonaan qaaluu tilka manaazilu al-anbiyaa rasuulka ilaahay oo dadka halkaa degay dee waa nebiye iyo rusul mooyaane cid kaliba halkaa maydaa degi karta qaala laa innahum rijaalun aamanuu billaah wasaddaquu lmursaliin maya ambiye iyo rusul keliya maaha waa rag ilaahay rumeeyey oo iimaanku dhab ka yahay wasaddaquu lmursaliin rusushii ilaahay soo dirayna rumeeyey dadkaa weeyaan wuxuu nabigu sheegay sal allahu alayh wasalam inta darajo ay tahay jannadu markaasuu nabigu wuxuu aljannatu 100 daraja jannadu waa 100 jaranjaro kala sarraysa 100 darajo weeyaan maa bayna kulli darajatayn kama bayna as-samaa wal ard labadii darajaba intay isu jiraan waa cirka iyo dhulku intay isu jiraan 500 sanadood weeye labadii darajaba 500 sano loo kala soconaya wal firdawsu a'laaha daraja jannada firdawsa la yiraahdo ayaa ugu darajo sarraysa fa idha sa'altumullaha fas'aluuhu al-firdaws haddaad ilaahay janno weydiisanaysaan firdawsa weydiista jannooyinka iyadaa u sarraysa iyadaa u dhexdhexaysa webiyadaa jannadii aad aragtaan ee barwaaqadaha la sheegayo xaggeeday ka soo burqanayaan buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam asallahu an yaj'alana min ahli al-firdaws al-a'la qodobka sideedaad sababaha lagu helo rifcu darajaat ama rafcu darajaat darajooyinka ilaahay inuu ku siiyo meel sare inaad ka degtid waxaa ka mid ah kathratu salaah salaada sunnayaashaad badsato faralka markaad halka dhigto sunnayaal badan oo aad tukataa waxay keenaysaa inaad hesho darajo sare inaad gaadho xadiidkii thawbaan baa caddaynaya mawlaa rasuulillaah qultu yaa rasuula allah waxaan idhi buu yidhi thawbaan rasuulka ilaahayow akhbirnii bicamalin acmaluhu yudkhiluni illaahu bihi aljanna waxaad iiga warantaay oo ii sheegtaa camal aan sameeyo oo ilaahay jannada sababtii igu geliyo qaala calayka bikathrati sujuudi lillaah ilaahay sujuuddii u badi ogow inaad sujuudda badiso oo ilaahay salaado badan u tukato sujuudda waxaa loo sheegayaa waa tacbiiru ljuzi wa iraadatu lkulli wey meeshii ugu qiimaha badneed baa la cabirayaa salaada laakiin salaaddaa loo wada jeedaa fa innaka laa tasjudu lilaahi sajda adigu ilaahay uma sujuudid sujuud ilaa rafacaka allaahu biha daraja ilaahay darajuu kor kuugu qaadaya bal u fiirsa sujuudda bani aadamka qofka muslimkay tukanaya wejigiisoo meeshii ugu sharafta badnayd ah buu dhulka dhigayaa dabadiina kor buu u taagayaa ilaahay cid aan ahayn saa loo yeeli karaa ma jirto ilaahay marka wuxuu kugu abaalguday in darajadaada uu kor kuugu qaado subxaanahu wa tacaala maadaamaad meeshii kuugu sharaf badnayd dhulka isagaa u dhigtay dabadana kor u taagtay 8 xubnoodna ka sujuudsan tahay subxaana rabbiya alaclaa aad leedahay ilaahay jannada inuu abaalkaaga kor u qaado samaynaya waa meeshuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam ku dadaala ducada markaad sujuudsan tihiin ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay ducada inuu idinka aqbalo inaad ku dadaashado markaad ducada 3 jeer tiraahdo subxaana rabbiya alaclaa markaad tiraahdo marka afaraad ducooyinka jaamica ku ducayso yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إني أسألك جنة الفردوس رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة دعاء جوامع ده إن كنت عيستي markaa sujuudsan tahay aadan ilaawin waxyaabaha muhimka bay ka mid tahay waxata canka biha khatii'a darajana waa lagu siinayaa dembina waa lagaa ridayaa qodobka 9aad asbaabaha keena in ilaahay darajada kor kuugu qaado jannada waxaa ka mid ah weysada si wacan aad u weysaysato oo weysada aadan
iska xumayn ood ku dadaashid iyo salaadaha ood jamaca ku tukatid rasuulku xadiidka muslim uu soo saaray min xadiidi cabdullahi bin mascuud maa min rajulin balada eeg ma jiro nin yatataharu weysaysanaya fayuxsinu طuhuura weysaqaadkana hagaajinaya uma yacmidu ilaa masjidin min hadihi اlmasaajid dabeetana u qasdaya inuu u salaa tago masjid masaajidada ka mida ilaa hadduu jiro qof caynkaasi kataba allaahu lahu bikulli khaطwatin yakhtuuha xasana tallaabo kastoo uu qaado ilaahay xasano u qorayaa wayarfacuhu biha darajana ilaahay kor buu ugu qaadayaa wayaxuطu canhu biha sayi'a